rooble ummaddu waxay malaha u haysataa inuu ra'iisul wasaare Soomaaliyeed yahay horta waa ra'iisul wasaare reereed xildhibaan barqad jaamac batuun oo kamid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ahna afayeenka xisbiga mucaaradka ee wadani oo ka hadlayay howlgallada xukuumadda Soomaaliland ka fulinaysay magaalada Laascaanood maalmihii u dambeeyay ayaa waxa uu sheegay in howlgalladaasi lagu raafayo dadka ka soo jeeda bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya aan loo marin hab sharci balse waxa uu ciidamada ammaanka iyo xukuumadda Soomaaliland ba sheegay inuu ku taageerayo tallaabo kasta oo lagu sugayo amniga qaranka Soomaaliland xildhibaanka oo hadalkiisa si wata iyo waxa uu sidoo kale eedo culus u soo jeediyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo uu sheegay inuu yahay ra'iisul wasaare reereed ee aanu ahayn ra'iisul wasaare Soomaaliyeed in dhaweyd waxa hadalhaynta dadka iyo dalka ugu weyn ay ahayd dad maata oo caruur iyo dumar u badan oo magaalada Laascaanood laga saaray kana saareen laamaha amniga arinta ka hadalkeeda ayaan doonayaa inaan kelmad kooban ka yiraahdo Soomaaliland waxa saldhig u ah nabadgelyada waxa imika saxaafadiina waxay iga duubaysaa waxaan xildhibaan ku ahay waxa dawladnimadeenu ku jirtaa waxa shacabku ku nool yahay waxa dunida aynu ka iibinaa waxaanu bartaa ku soo gaadhnaa waa nabadgelyo Laascaanood mushkiladda ka dhacaysay ee soo noqnoqotay ee dilalka joogtada ah dhibanaha koowaad cid ka ahayd wuxuu ahaa xisbiga wadani dilkii ugu dambeeyay Laascaanood ka dhacay cidii lagu dilay wuxuu ahaa gudoomiyihii xisbiga wadani ee gobolka Sool isagoo sidoo kale ahaa xildhibaan golaha deegaanka ka tirsan markaste ka xisbi ahaan ka ummad ahaan ka xildhibaan ahaan waxaanu taageersanahay in la sugo nabadda Soomaaliland in ummadda nabadeeda loo ilaaliyo laamaha amniga ee wasiirka arrimaha guduhu kow ka yahay ee jananadu laba ay ka yihiin waanu ku barbar taaganahay ilaalinta nabadgelyada Soomaaliland iyo qarannimadeeda haddii aanu nahay xisbiga wadani dadka la saaray maatada nidaamka loo maray runtii nidaam qurux badan muu hayn dhaqan baa jira diin baa jira dadnimo jirta kow waxay ahayd dadka in notice la siiyo in la ku diyaar garoobo muddada inta laga inaad dalka kaga baxdaan waa dad nabadgelyo darra ay soo qixisay oo nabad Soomaaliland soo biday dadka dhaqanka iyo diintu ilaaliso waxa kow ka dumarka iyo caruurta wayna damqaysay runtii in dumar iyo caruur baylaha iyo balanbal badani ka muuqdo banaanka loo saaro wax dhaqankeena dawladnimadeena dadnimadeena caado iyo curfu waxa meehay nidaamka dawladeed iyo sugidda amniga dalka laamaha amniga ka hor dhici mayno ma baarid bay sameeyeen waa kow ma dadkan dambi baa lagu helay ma maxkamad baa xukuntay inay baxaan ma xukun dawladeed oo laga sinaabo ahaa intee in laag baa notice la siiyay hantidooda ayaa la wareegi karaya sidee loola wareegayaa waxaasoo dhan waxa ahayd runtii nidaam iyo qorshe dawladeed oo adag in lagu galabay timay dhicin aadna taawaan uga xunnahay wayna nadamqaysaa hadda mar labaad in aad dawladdu ugu dhug yeelato wixii dhaawacaya qarannimadeena iyo quruxdeena iyo dawladnimadeena waanu ku baaqaynaa arinta kale maanta doonay bartayna kaga hadla waxa weeyaan waxaan arkay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ninka Rooble la yiraahdo oo runtii ereyan naxli iyo nacaybshiyo muujinaya ku abuuraya ummadda Soomaalida Rooble
ummaddu waxay malaha u haysataa inuu ra'iisul wasaare Soomaaliyeed yahay horta waa ra'iisul wasaare reereed dhalishu Soomaaliland ku dhaliilayana hadduu dhiigga shacabka Muqdisho joogaa aanay isaga waxba laahayn annaga dhiigga shacabka Soomaaliland joogaa dheeman nagala qaalisan markay timaado ilaalinta nabadgelyada markay timaado dhowridda xuquuqaha asaasiga ee nafta iyo maalka iyo dhiigga iyo muwaadinimada Soomaaliland waa mid aanu kala simannahay xukuumadda waa mid aanu ku taageersanahay sugidda nabadgelyada xukuumadda annagoo mucaarida oo kala aragti duwan laakiin Soomaaliland baa namidaysan waxaan leeyahay Rooble mixnada iyo munaafaqada doonaysa inaad ka dhex dhaliso ummadda Soomaaliland shacabkeeda iyo shacabka Soomaaliyeed haddii aad dadka wax u qabanayso qaraxyada Muqdisho ka dhacaya ee dadka soo qaxiyay wax ka qaban lahayd nidaam xumada Muqdisho ka jirta ee taandooyinka la isku dooranayo ee wax ka qaban lahayd shacabka dhibaataysan ee qowraca iyo qaraxa ka soo cararaya ee barta soo magan galay marka horeba kaama yimaadeen haddii nolol adiga ku bidaya adiguna waa adigii Hargeysa nabad iyo nolosha ku haystay ee joogay waa adigii shacabka Soomaaliland ku dhex noolaa cid curfi iyo cuqdad ku haysamay jirin laga waxaan ku leeyahay curfiga iyo cuqdadaad ummadda ku kala dhex abuuraysaa waa taa maanta Muqdisho aad ku baabiinayso waa taa taariikh xumada maanta aad ku leedahay inaad ka waantowdaa kuu fiican isku liskad ummadda isku lisay xisbi ahaan xildhibaan ahaan iyo ummad ahaan ma taageersanin dad Soomaaliyeed oo dalka marti ku ah in si degdeg ah loo saaro in hantidooda lala wareego waxaan kula soconana xukuumadda ma laakiin laascaanood iyo gobolka Sool Soomaaliland iyo dunidu baa waqtiga waxa ka dhacaya inay tahay ama dhibta ay tahay waa dhiigga dadka oo dhayalu daadanaya in dhiigga dadka la joojiyana wasiirka arrimaha gudaha ku taageersan jananadaan ku taageersan madaxweynaha ku taageersan shalay tolo cidii la dilayay ee baaskoolada lagu dhuftay ee meedkiisa loo soo sheegay gudoomiyaha xisbiga wadaniga cid kale ma wahay dabcan khalad uu dhici karaya laakiin in la boombooniyo oo waji siyaasi laga dhigo oo roob lagu ka dhigo waa ayaan dar Soomaaliland baanu ka simannahay mucaarid iyo muxaafidba adiga waxa ku taala ayaha shacabka Muqdisho ee filimada Hindiga aad ku dul shilaysaan inaad ka talisaan marna taandheer aad isku daawanaysaan oo isku dooranaysaan marna aad maareen kari laadihiin malaayiinka Muqdisho ku nool ee nabadgelyo darradu haysato ee dhiigood iyo dheecaankooda maalin kastaba dhigihiina ku soo dhacaya ee qarax la beegsanayo laascaanood sababaad wax uga sheegtay xukuumadda Soomaaliland adigoo iyo qayrka toon uma taalo waxaan shacabka Soomaaliland ugu baaqayaa waxaan xukuumadda ugu baaqayaa gobonnimo nabadgelyo horumar wanaag ayuu Ilaahayna siiyay war dadka martida inagu ah war dadka Soomaaliyeed dadkeena la jooga war dadka nabadgelyada inoo soo biday war dadka birmageydada ah war dumarka iyo caruurta u badan aynu xaq dhowrno milkiiya maamuuska Soomaaliland ay lahayd aynu ilaalino oo talaabooyinka noocana ee insaaniyadda taabanaya ee dhaqanka taabanaya ee diinta taabanaya ee dadnimada taabanaya ha loo tala badsado si guud waxaanu ka wada simannahay mar labaad iyo mar saddexaad anigoo ku hadlaya afka xisbiga wadani afayeenka xisbiga wadani xildhibaanka aqlabiyadda shacabka Soomaaliland inaanu dawladdeeda Soomaaliland xukuumadda Soomaaliland aanu ku barbar taaganahay inay nabadda sugto inaanu dhiigga Soomaaliland muwaadiniinteedu aanu dhaylu daadan wala awdal baanu ogolayn wala marood sheex baanu ogolayn wala sanaag baanu ogolayn wala sool baanu ogolayn laakiin in laynagu siyaasadeeyo dadka martida inagu ama xukuumadana waxaanu ugu baaqaynaa inay arrimaha insaaniyadda taabanaya hoos ay waqto laakiin wixii amniga waanu taagan qolada Soomaaliyana waxaanu leenahay gaar ahaan ninka Rooble waxaanu leenahay gaar ahaan ninka Rooble waxaanu leenahay Rooble waanu ku garanaynaa Hargeysa aanu kugu garanaynaa Soomaaliland wanaagaad ku haysatay baanu kugu garanaynaa maanta kii Soomaaliland waxa kula hadlahay mati dunidana waxaad u sheegatay ra'iisul wasaare Soomaaliyeed laakiin anagu waxaan ognahay inaad ra'iisul wasaare reereed ummadda ligooyada ka daa naxliga iyo cuqdada iyo buqdiga aad ku kala dhex abuureysana ka daa imikana haddaad dadka wax u qabanayso
وكوا كوي ميد ريهابيليتيشن وسمه أحمد محمود دول تلفزيون كدلزن هرجيسة Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka